السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن ونكسن داودي عشان نقيمها بدن كسر وهذا برنامج كني فرنقيته وكالة وررك وقاعدين يونا وحنا هدو الله ود لو قراد كدر استاجي دون ناشر بلارن وكذا عيدل كالسودان أنا كقيب كشيء شبه هذا ودني آخرين تا وقاعدين يجوحه وحنا قال قيب قادنا يا صاحبك عبد الله كرمي وحنا اللي سعد سيني يعني وشعيب عمر الله يسلو هندو شعب ما صنت مقالة بورت السودان ما أنت وحكى قبصومي شير بلارن و أنا كقيب كشيء شبه هذا ودني آخرين تا وقاعدين والرفر بدني الدولة رفر بدنا على الشيء إني قيب كهاي كلن كاسم حضرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شعيب ما صنت هاي داودي عشان إنه سلام يا كلن كاسم حضرنا حكم كأردت كيلو فدية حكم كأردت كيلو فدية إسبهاي سكتنا حكم كأردت كيلو فدية وحين نقول هاي إنه وضمضة السودان يا لتريا يا مصر يا الصوماليا بينو فرقلين كوهاي فرقلين هذا بدل حكم حين نقول هاي إنه له هاي إن ودنك السودان تم هذا كذا علامة تم هذا RSF إن لغة تببرو دلك إثيوبيا جديه أين تاجرك يا إثيوبيا وحين نقول هاي إن ودنك لتريا زيادة وفربع فرقلين إنه كوهايو وحين نقول هاي حكم قارت كيلو فدية أما قالوا بي أما كورنيل كان ورسان إنه رادين يبض سوء هلا بدأ لك الصومالي أما بدأ صومالي إنه بد كهلو أما إنه كهلو اللترية ودكتة عسب وله وحان كيلي يبض وحين نقول إنه كلا يدنا وطن كمصر إن الأسبوع يدنا بيحدين كنيلك مركا إسبهايسي مفعول إسبهايسي وين ووطما يو أورو أما تم هذا كذا دقائق جذها جذها إثيوبيا إسبهايسي اللي قسمين يبها مركا إسبهايسي مفعول إسبهايسي كذا أردت كيلو marka intii soo badan qodobada ugu muhiimsan ee laga hadlayo kulanka waxa kamid ah sidii loo ridi lahaa xukunkan macaagaga dhigmiiratada BB kiligitariska ah qorshihii dhergiga wata si loo dhaafin lahaa arid kilo ay qolo kasta iyo wadan kasta iyo qoomiyad kastana ay ayaheeda ooga tashan lahayd ayadu marka kulanku intaas u daarana ma santa yaa ka qayb galay yaa sidabada ka riixay kulanka inta ugu badan waxa dabada ka riixaya dawladaha aan ku sheego isbahaysi wada iyo wadamada reer galbeedka ayaa inta badan dabada ka riixaya waayo wadanka waxa la arkay inuu ku jiro xukunkan BB inuu wadanka ku wado boqortooyo geeska Afrika intuu wadankiisa ka baxay boqortooyo geeska Afrika inuu wadanka inuu geeska Afrika oo dhan inuu boqortooyo ku qabsado inuu bad helo inuu wadamada geeska Afrika oo dhan inuu si direct ah u maamulo in wadan kasta uu faragelin ku sameeyo in wadan kasta gudihiisa kala furfuro oo uu kala qaybiyo in qolo kasta uu weerar ka dhan ku qaado ayaga markii taa la arkay waxay wadamada go'aansadeen iyo jamhadaha ay ka talinta u taagan ama ayoyahooda ka tashanaya wadamadooda u dagaalamaya waxay go'aansadeen in xukunka arid kilo isbahaysi xoog badan in loo sameeyo wadamada reer galbeedkuna markay arkeen inuu ninkan halis yahay wax badan oo wadanka geeska Afrika oo khalkhal ku wado isbahaysiyada iyo arrimahaas inta badan ayaga xagga dambe ka riixay marka waa adi kulamaan sidii karo kulamadan hadda kulamaha hadda bilowday waa kulamo in badan soo socday hadda ka hor waxa lagu galay wadanka Eritrea magaalada Asmara mar hore waxa lagu galay wadanka Suudaan haddana marka Suudaan marka kulankan kulan weyn oo loo balansan baa marka kulankaas ayaamahan uu soo socon doona halkaan uu ka socdaa maanta uu ka furmay halkaas way hoomaadsantahay sida sheegtay waxa kulanka qayb galay xoog fara badan oo ka soo horjeeda taliska arad kilo waxay uga dhigan tahay iyaga taliska arad kilo wallahi taliska arad kilo waxay uga dhigan tahay horta geeri waxayna filinin baa ku dhacay culeysyo badan baa wajahaya waxaa caawa korneelku de fidiidkiisana waa naqaanaa mugta waxaa dhici karta inuu caawa weeraro inuu qaado ama wadamada jaarka ku qaado ama uu ku qaado deegaanka Tigray marka aradkii caawa waxay uga dhigan tahay geeri waxaana furfurtay wixii uu dhoobay sagaalkii sano wadanka haystay wadanka afmaroorka ku watay waxaana Shucayb arinta ka cad waxaynu ogeyn markuu ninkan yimaaday
xukunka arat kilo inuu furfurnaasho badan sameeyay inuu jamaadii xilliga dagaalamayay kamid ah jamaadda wadaniga xorriyadda ogaadeen jooxo inuu heshiis la sixday waxaynu ogeynoo kale ayaga laftoodu jamaadii oo alaf iyo faanay xilliga ayaga laftoodu dagaalamayay gudaha Itoobiya ka dagaalamayay in ayaga laftoodu heshiiseen la galay heshiisyadii oo dhan inuu ka baxay korneelku marka korneelku heshiisyadii jamaadaha markuu ka baxay wuxuu sameeyay inuu dawladaha jaarka inuu laftooda faragelin badan inuu ku hayo waxaanu ogeyn wadanka Soomaaliya faragelintu ku hayo waxaanu ogeyn wadanka Suudaan faragelinta uu ku hayo weeraradu ka geystay marka korneelkan caawa waxay ooga dhigan tahay geeri waxayna u eg tahay ada korneelku asaga laftiisu wuxuu malas iska caabin waayo asagu iskama caabin karo marka caawa waxay la tahay aduu inuu dhigir ku soo boodi doono mar korneelka caawa habeen aad iyo aad u walbahaaray marka waxaan markaan xoogaa yar eegay xukunkan bida hadda doorashada iyo waxyaalaha waxa dadka lagu jaawareerinayo waxaan maleynayaa inuu waxaas hadda iska soo gaami doono uuna korneelku wadan noqoto inuu wadan iska dhiibi doono malay waa nin loo tashaday waayahay Cabdullaahi shirkan saan horeba ku sheegnay waxaa ka qayb gashay jabhadda wadaniga xorriyadda ogaadeen jooxo oo uu goobta fadhiyay gudoomiyihii jabhadda Dr. Cabdiraxmaan isla Suudaanta dhexdeeda toddobaad weeytay isagana waxaa dhacay shir ay mucaaradku saas oo kale iskugu imanayeen gudoomiyihina uu fogaan araga ka qayb galay oo NLF maxaa iyada faa'iido ah oo ugu jirta kulanka شعيب ما سنت هرت سان هرت صاشنا كلن كان ها حكم كأرت كيلو بي مركع كلن كان جماعة ودين بحرين توجدين يا مو شعب وينها سومالي توجدين يحفى إذا وجرته إلى عيه هذا كتشطان كلن كان قومية ذا كقيب جلية كوي السجاشن كودي ما سجاشن كودي جماعة ودين بحرين توجدين أما شعب كسومالي توجدين بس هي مثلا عيه كتلنت أما أنت كان عفتي لك قاضي هذا قلق كستا أما قوميات كستا وحي من سنتهاي إني عيه هذا كتشطان مركا كلن كانوا كلن إسبايسي جماعة ودين بحرين توجدين هنا halganka loogu jiro shacabka Soomaalida ogaadaya ama halganka gobonnimadoonka wada kasta oo shacabka aayahooda lagaga talinayo waa loo mari ama qalin ha ahaado ama qori ha ahaado 8 sano ayaa BB heshiiskan la soo galay yaan lahayn wareeshiiska leergari halkiina waa laga soo qaadi waayay markii jamaacadda wadaniga xorriyadda ogaadeen aragtay inayna xukunka arat kilo iyo BB inayna kuwa u socda ayna ahayn fulinta heshiiskii waxay go'aansatay in wada kasta oo lagu heli karo ummadan ay ka talinteeda in la maro marka heshiiskan wuxuu ooga dhigan yahay jamaacadda wadaniga xorriyadda ogaadeen ama guud ahaan shacabka Soomaalida ogaadeen guul waxaana qorshaysan inuuna ahayn kii 91 kale uu yahay قوميات كاستعيادنا عيها كتشتاي ربط قوميات هذا شعيب إثيوبيا وين تمشرت إثيوبيا قلا كاستوحي ربطانا ما أنت عيها هذا كتشتو قلا كاستوحي ربطانا يدو أي حكم كان أردت كيلو معاك جاي بي ده هالك عرقتي درجة دينا كتر إنه إسقافسو شعب كديان Soomaali dana waxaynu ognahay hadda qolada BB-du dhibaatada ay ku hayaan dadka xuduudaha degan sida aynu barnaamijkeennii hore aynu ku falanqeynay dadka xuduudaha degan ee deegaanka Soomaalida oo dhan dhib badan baa lagu hayaa waxaa ka mid ah hadda xuduudda aan la leenahay waxaa ku haya xukunka arat kilo iyo ciidamadiisa ku haya waxaynu ognahay in shacab masaakiinaha in lagu leeyahay degmada Baabili ee gobolka Faafan waxaynu ognahay degmada Tuulini ka soo risay waxaynu ognahay gobolka Liibaan degmooyinkiisa xuduudda la leh deegaanka Oromiya waxaynu ogeyn ayadana degmada Mooyaale ama magaalada Mooyaale inay markasta dib soo noqdo in badan soo noqnoqday inuu jiro waxaynu ognahay ayagana inay jiraan dad badan oo ayaga laftooda ay soo barakiciyeen qoladan cawaantiga ee oromada iyo qolada BB-da
marka aynu ognahay in barakacaas uu qoloji ku rafaasan yahay marka xukunkan markasta waa xukun lidku ah shacabka Soomaaliyeed laakiin qoladaasi TPP way ka sii horeeyeen nidaamka guuduna lagu soo barakicay laakiin barakicintooda way nidaamka waxaan qorshe istiraatiijiyadeysan qorshahaas wuxuu ahaa qorsho markii hore dib la kala dhaxdhigay labada shacab qorshahan waxa ka dambeeyay ninkan aradkiilo fadhiyada marka intii laga rabeen waa laga yeelay dadkan waxa la rabay in la soo barkiyo beerahoodii dhulkooda in la qaato bal rabay qorshe kale loo watay maahayn marka shacabweynaha Soomaaliyeed ama Soomaalida ogaaday waxaan u rajaynaynaa guul waxaana islaahay halka waxa ugu jirta arrin muhiim ah oo ayahoodiyo ay ayahooda kaga tashan doonaan marka tashano daawadayaal intaas ayuu ugu egyahay barnaamijkeena intaynu mid kale ku kulmayno aan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo